maanta waxaan idin wadaa war farxad leh hubkii cunaqabatayntiina ka saarnay qayb ahaan waa la qaaday oo waxa loo ogol yahay ciidamadu wixii ay u baahan yihiin oo qalab oo teknika ah oo diyaarada oo wax walba inay soo gadan karaan arinta marka waxa ka dhalatay warkan farxad leh oo hadda idin wado Soomaaliya waxay haysataa daroon waliba nooc ugu khatarsanaa noocii uu Turkigu kaga adkaaday Armenia iyo Ruushka oo isla socda Bayraktar TB2 ayay Soomaaliya haysataa arintaas waa khabar caajil ah oo beautiful aad baan ugu faraxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan laba arrimood waa u dhamaatay diyaaradihii KDF oo iska duqeynayay shacabka ku nool Gado iyo Jubbooyinka arintaasi way soo afjarmaysaa waxa soo afjarmaya badii laga kalluumaysanayo soo afjarmaysaa waxa saddexaad oo afjarmaya al-shabaab iyo nimanka argagixisada ee buuraha iyo meelaha ku dhuumanaya iyaguna way afjarmayaan waxay u afjarmayaan sidii argagixisadii TPLF ay u afjartay diyaaradaas laftigeed waad ogtiin Abiy Ahmed in Addis Ababa qarka loo soo fuulay diyaaradahaas loo keenay TPLF meel ay taan iyo cirib dhigeen laba yaqaan magaalooyinka ay haysteen oo dhan waa laga xoreeyay gudaha loo socdaa hadda Westernki waxay ku qaylinayaan Abiy Ahmed ha joojiyo weerarkii dagaalka ha ka haro laga hari maayo waa laga sifaynaya daroonka qof u tooganaysa oo baabuur u tooganaysa cidina ka baxsan karin ayaa Soomaaliya haysataa waxaan rabaa inaan halkaan ammaan iyo bogaadin uga jeediyo madaxweynaha oo ku guuleystay runtii vision ah iyo aragti ah Soomaaliya inay ka baxdo dawlad la'aanta oo ay u guurto dhanka dawladnimada aad baan ugu hambalyeynaya ciidamada inay ku guuleysteen inay keensadeen Bayraktar waxaana ku baraarujinaya ku dhiirigelinaya inay helicopter keensadaan oo booliis gareeya wadanka oo la dagaalama argagixisada waxaan halkaan ka cambaaraynaya Cabdiraxmaan Abshakuur oo afka furtay oo ka qaylinaya daroonka waxa la yaabay war waxaas oo faa'iido aan daroonka ka helaynaa maxay kuugu muuqataa un farmaajo waad khafiiftay farmaajaad ku khafiiftay dawladnimada ma taqaanid muufaysina waa dhamaaday taajuusnimana waa dhamaatay marka waxaan ku leeyahay iska naso doorashada aad ku qaylinaysid waliga laba cod ka badan kama helin haddana heli maysid adeero ka naso umadu ha ka nasato buuqa iyo qaylada ka daa haddaad Facebookaaga iyo ku camirinayso social media-gana iska wado warkaaga bullo ha iska takhdo isaga iyo mucaaradkii doorashaan rabnaa maya ma rabno doorasho hadda waxay ku soo gabagaboobeen farmaajaha laga reebo doorashada si aan u tartanno waxaas haddaadan wax iska dhicin karin iska give up garee qofku markuu arko inuusan viable ahayn inuusan lahayn chance lahayn uu ka hara caalamka aan joogno doorashooyinka qofku booliska iyo waxbuu raayul caamku raadiyaa haddii aan laga rabin uu iska hara adeerayaal leedin ma rabee ka hara siyaasadda iskaga baxa